Abdallah Roy iyo wiilkan kale idin muuqdo oo magaciisa yiraahdo Heykal araba arintooda iyo waxyaabaha la isku haysto inaan idin biyaamiyo haddaba khiyaanada halkay ka imaatay ma Abdallah Roy ba wax khiyaanay mise Heykal wax khiyaanay mise gabadha wax khiyaantay haddaba arinta si fiican ila dhageysta Abdallah Roy saawada ogeedeen wuxuu ku noolaa dalka Kenya qaasatan Nairobi waa halkii uu ku soo caan baxay ninka la leeyahay Heykalna waxa waaye wuxuu ku nool yahay ama hadda uu ku nool yahay wiilkiisna uu ku noolaa xabsi dheer kadib wuxuu ku nool yahay hadda magaalada intaas kadib waxaan rabaa marka arinta khiyaanada gabadha ay u geysatay labadan ninba khiyaanada haddaba Abdallah Roy kama iman Heykal kama iman khiyaanada waxay ka imaatay gabadha sababtan idin sheegay marka gabadhan markii hore qofka xiriirka ay la lahayd wuxuu ahaa Abdallah Roy Abdallah Roy markii xiriir la lahayd waxay imaatay Somaliland horta koow Abdallah Roy soo martay dalka Kenya ay ka soo martay Abdallah Roy soo kaxeysay Somaliland Abdallah Roy keentay isbuuc kadib Abdallah Roy waa tii Muqdisho u imaaday sababta keentay Abdallah Roy Muqdisho waxay ahayd in Abdallah Roy ay lacag la siiyay lacag 1 sidii anaga hadalka ku maqalnay kun amal in la siiyay loona sheegay inuu iska baxo oo dalkiis gal maadaama ay dadkeeda u imaato oo ay ku jirto arrimo macnaha dalxiis iyo barnaamijyada ay galayso kadib Heykal ay baratay gabadhan haddana ayadoo og in Abdallah Roy xiriir la leeyahay ay Heykalna barnaamij ay la sameysatay waa tii Heykal uu aroos u dhignay marka khiyaanada labadan qofood waxa geysatay gabadha geysatay maahay Abdallah Royna waxa way waxa lagu haysto waa qalad khiyaanadana waxa geysatay gabadha وما سنتين جودان وحاسدن كدنبيسي وبلا توفيق